qoriga oo qabiilka laga qaaday qarankana loo dhiibay waxay ahayd tallaabo adag ciidan madani ah macnihiisa dadka badankoodu waxay u arkayeen dib u dhac dayac qaran dulli qabiil iyo dana shaydaan maantadse waa madaxweyne afkoode kuwa kale ayaa u arkayay qoorsiga oo la iska rabo qoomamada oo la diido iyo wadada kaliya ee lagu difaaci kara qabka qabaa'ilka ay tahayba waa tallaabo u suurta gashay xukuumadda Somaliland isla markaasina ay fulisay wasaaradda gaashaandhigu oo siyaasad ahaan ciidanka iyo arrimaha difaaca u xil saaran tallaabo lagu majeertay guurtidii u fadhiisatay iyo waxqabad aan laga difiri karin xukuumadda madaxweyne Ciro oo jeer dambe lagu faari kara ay noqotay wana sababta malahayga lagu doortay qodobka koowaad ee howlqabadka wasaaradda gaashaandhiga Somaliland 180 maalmood ee ugu horeeya muddo xileedka xukuumadda oo maqal aragan aynu ku dul istaagi doono qaramaynta ciidamada madaniga ah bishii labaad ee sanadkan ayay ahayd dharartii ay jarmada kaga bixin caasimadda Hargeysa wafdi uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland oo ay wehelinayaan guddi loo xil saaray shaqada qaramaynta ciidamada madaniga ah kuwaas oo ka mid ahaa wasiirka gaashaandhiga Maxamed Yuusuf Cali oo guddigaasi ka ahaa gudoomiye ku-xigeen ninkan ayaa la sheegaa in magacaabisiisa wasaaraddan ay ahayd luqad fudud oo soo dhaweysay isfahamka dawladda iyo horjoogayaasha ciidamada madaniga ah isla markaasina suurto gelisay dhamaystirka qaramaynta ciidanka waxa uu ka mid ahaa shakhsiyaad si weyn u taageeray ololihii doorashada madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro isla markaasina ah nin saameyn siyaasadeed iyo mid dhaqaale ku leh deegaankiisa muddadii ay socotay qaramaynta ciidamada madaniga ah ayaa si weyn loo bartay waxaana si gaar ah loo xasuustaa kaalinta uu ka ciyaaray howlqabadka muhiimka ah ee xukuumaddiisa gaar ahaan qaramayntii ciidamada madaniga ah oo ka mid ah tiirarka ay ku faanayso wafdiga waxaa kale oo ka mid ahaa taliyaha ciidanka qaranka Nimcaani Yuusuf Kaxnuug madaxsinku waxa uu ahaa gobolada bariga gaar ahaan Sanaag Sool iyo Togdheer ujeedkuna waxa uu ahaa in qoriga dib loogu celiyo qaranka shaqadu waxay qaadatay in ka badan 3 bilood waxayna ahayd tallaabo adag oo lagu eegayay habka ay wasaaradda iyo qaranku u maareeyaan cirigaabo ayaa laga bilaabay halkaas oo wafdigu kula kulmeen dadka deegaanka iyo hogaamiyaasha dhaqanka kuwaas oo loo arkayay horjoogayaasha dhabta ah ee ciidamadu ay lahaayeen shirar iyo gorgortan dheer oo qaatay muddo ka badan bil guddiga uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland waxay ku guuleysteen in la qarameeyo ciidamadii ugu horeeyay oo ku sugnaa jidda gobolka Sanaag tallaabadaasi waxay ahayd bilow wacan oo fududeysay hawsha ay guddigu dharaaraha u dhalan nooleen habeenadana ay u dhaxeen ciidamada oo u nidaamsanaa hab qabaa'il ah ayaa bilaabay inay arda ay soo abaabulaan oo ay soo afeeraan 2 sano oo dagaal isxaqaan ah iyo istifaacid ah oo ay ku jireen hubkii ciidankan ay haysteen oo isugu jiray hub fudud qoryo culus iyo gaadiid dagaal dhammaantood waxaa lagu wareejiyay gacanta dawladda oo mas'uul ay uga tahay wasaaradda gaashaandhigu sidoo kale waxay haysteen gaadiid dagaal oo casri ah wadarhana waxay wareejiyeen 315 gaadiidka dagaalka ah oo 164 ka mid ah ay ahaayeen qabaalada ama baabuurta dheereeya ee loo yaqaan cabdibilaha tirada ciidanka la qarameeyay waxay ahayd in ka badan 6,000 oo askari waxayna hadda ku jiraan tababar iyo carbin loogu sameeyo dugsiyada bixin Sanaag Sheekh Saaxil Caynaba Sool iyo dugsiga Qorilugud ee Buuhoodle nabadeyntii Calafweyn qaramaynta ciidanka qaranka waxa ku lamaanaa heshiis nabadeed ama dib u heshiisiintii ugu weyneed ee dhacday wixii ka dambeeyay dib u curashadii labaad ee Somaliland waa soo afjaridda colaadii lagu reeqmay ee ka jirtay deegaanka Calafweyn taas oo nafo badan ay ku baxeen isla markaasina lagu guul daraysay xilliyo kala duwan oo lagu bixiyay dadaal iyo dhaqaale xoog leh wafdiga uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland gudoomiye ku-xigeenkana uu ka ahaa wasiirka gaashaandhiga Maxamed Yuusuf oo ay weheliyeen waxgarad iyo guurti kale ayaa ku guuleysay in colaadaasi la soo afjaro nabadna ay ka dhaxdhalato deegaanka iyo dadka xigtada ah ee wada yaala halkaas mushahar kordhinta iyo tirakoobka ciidanka qaranka iyadoo oo la tixraacaya ballanqaadkii madaxweynaha ee mushahar kordhinta ciidanka ee ahayd 250 muddo xileedkiisa 5 sano ayaa wasaaraddu sanadkan waxay ciidamada qaranka u samaysay mushahar kordhintii ugu horeysay taas oo la micno ah in muddada 5 sano ah sanad walba mushaharka ciidanka lagu kordhin doono 50% tallaabadii ugu horeysay ee ballanqaadkaasi ayaa la qaaday sanadkan iyadoo ciidanka qaranka loo kordhiyay xisaabtooda hirgelinta nidaamka mushahar kordhinta waxa barbar socday casriyeyn iyo hufnaan lagu sameeyo maamulka ciidamada wasaaradda gaashaandhiga gaar ahaan guddiga tirakoobka iyo casriyeynta ciidanka qaranka oo hogaamiyay wasiir Maxamed Yuusuf Cali ayaa bilaabay tirakoobka iyo diiwaangelinta buuda isha taas oo sugi doonta tirada saxda ah ee ciidamada qaranka nidaamkan waxa uu askariga u damaanad qaadaya xuquuqo kala duwan oo ay ka mid yihiin hawlgabka tababarada iyo darajooyinka isla markaasina waxa uu meesha ka saaraya cagleysiga muddada dheer caqabada ku ahaa habsami u socodka ciidanka si loo xaqiijiyo hawshan howlwadanada wasaaradda oo horkacaya wasiirku ayaa muddo 22 cisho gudahooda waxa ay ku dhameystireen dhismaha xarunta xogta data center oo laga dhisay gudaha wasaaradda xaruntani waxay noqonaysaa kayd rasmi ah oo lagu hagayo xogta diiwaangelinta ciidanka
16 Maarch ee sanadkan waxaa dalka la keenay qalabkii sarfarada ee keedinta xogta isla bishaasi gudaheed waxaa si rasmi ah loo furay tababar loo qabtay howlwadeenada ka shaqayn doona nidaamka cusub ee diiwaangelinta ciidanka siyaasadda iyo xeerka howlgabka wasaaraddu waxa ay diyaarisay siyaasadda iyo xeerka howlgabka oo dhidab u noqonaya mustaqbalka askarta iyo qoysaskooda iyo dhaxal wanaagsan oo ubadka ciidanku ay ka dheefi doonaan shaqada ay qaranka u qabteen waalidkood qodobada ugu muhiimsan ee xeerka howlgabku u damaanad qaadaya ciidanka waxaa ka mid ah caymis caafimaad askarta howlgabka ah iyo qoysaskoodu waxay heli doonaan caymis caafimaad oo joogto ah waxbarasho ubadka ciidanka xeerku waxa uu u damaanad qaadaya taageero waxbarasho taas oo dhaxal iyo nolol cusub u abuuraysa jiilka soo socda isla markaasina qoysaskooda ka dulqaadaysa dhaqaalaha waxbarashada kaga baxa da'da howlgabka ciidamadu waxay howlgab noqon doonaan marka ay gaadhaan 65 sano sida uu dhigay xeerka howlgabka ciidanka qaranku wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ayaa wareegta ku soo saaraya iyadoo la waafajinayo xeerka ciidanka iyo mushaharka askarta siyaasadani haddii ay hirgasho waxay noqonaysaa dhaxal waara waxayna dhiirigelinaysaa in ciidanku ay yeeshaan kalsooni iyo dhiiraraan dheeraad ah dhanka xidhiidhada dibadda waxaa kor loo qaaday xiriirka ay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland la leedahay dalalka dariska ah iyo bahwadagayaasha caalamiga ah sida Ethiopia, Mareykanka iyo hay'ado kale wufuud kala duwan ayaa dalka yimid waxaana ugu miisaan cuslaa wafti Mareykan ah oo hogaaminayo taliyaha xilka ka degay Africom General Liga waxa mar kale booqasho ku yimid saraakiil ka socda ciidanka Mareykanka ee bariga Afrika waxa ay kulan la qaateen madaxweyne Cirro oo uu helinayo wasiirkiisa gaashaandhiggu waxay ahayd booqasho muhiim ah marka loo eego dhaqdhaqaaqa uu Mareykanku ka wado gobolka iyo isbeddelka uu ku sameeyo siyaasaddiisii hore ee Soomaaliya qorshaha 6 bilood iyo arrimaha dheeraadka ah ee la gaaray muddadii 6 bilood ee la soo dhaafay waxa markii ugu horeysay la bedelay magaca wasaaradda gaashaandhigga oo laga dhigay wasaaradda gaashaandhigga iyo difaaca qaranka muddadaasi waxa socday isbeddel weyn oo dib u habeyn iyo horumarineed xafiisyada iyo xarunta dhexe ee wasaaradda ayaa dib loo dayactiray lana cusboonaysiiyey waxaa dib loo howlgeliyey gaadiidka howlgabka ahaa sidoo kale waaxda cududa shaqaalaha iyo qaab dhismeedka guud ee wasaaradda ayaa dib u qaabeyn lagu sameeyey iyadoo oo lagu daray wax cusub oo kaydisa xogta ciidanka qaranka markii ugu horeysay ayaa la diyaariyay qorshaha siyaasadda 5 sano ee soo socota 2025 ilaa 2030 kaas oo noqon doona hagaha guud ee wasaaradda iyo ciidanka qaranka sidoo kale waxaa la dardargeliyay barnaamijyada wacyigelinta miinada iyo walxaha qarxa oo ay fulinayaan waxyaha u gaarka ah wasaaradda gaar ahaan kuwa ka shaqeeya wacyigelinta khatarta miinada gobolada Togdheer Awdal iyo Maroodijeex ayaa lagu qabtay howlgallo isugu jira miina saaris iyo wacyigelin guud oo bulshada lagu gaarsiiyay khatarta miinada muddada 6 bilood ee soo socota wasaaradda waxa uu qorshaysan sida ku xusan buugyaraha waxqabadka wasaaradda inay dhamaystirto howlo muhiim ah oo ay ka mid yihiin diiwaangelinta waaxda naafada iyo agoomaha samaynta tirakoob buuxa dib u habeynta iyo kala saarista dadka naafada agoonta iyo howlgabka ah hadda waxa wasaaradda u diiwaan gashan 4117 qof oo isugu jira agoon naafo iyo howlgab dhammaan howlqabadkani waxa uu qayb ka yahay waxqabadka xukuumadda madaxweyne Cirro waxaana si gaar ah loogu tilmaamaa inuu yahay mid ka mid ah qodobada ugu waaweyn ee xukuumaddu ku faanayso gaar ahaan qodobada qaramaynta tirakoobka iyo mushahar kordhintu 5 sano ee soo socota waxqabadkaasi waxa uu siyaasad ahaan hoos yimaadaa wasaaradda gaashaandhigga iyo difaaca qaranka taas oo iminka uu hogaamiyay wasiir Maxamed Yuusuf Cali halka agaasimo guudna uu ka yahay Maxamuud Cabdirasaaq